Assalaamu calaykum. Xikmad waa nasiib alla keeno, waa garasho ay si fudud u hesho maskaxdu, waa fikir fogaan arag iyo fiiro ku qotoma, waa akhlaaq iyo haybad diimeed, waa tiirka cilmiga iyo waayo aragnimada, waa il eegista nolosha iyo nafleyda gadaashooda wax ka akhrida, waa wax ficil dhammaystira ee dhaqaajiya. Si kooban haddaan u sheego, waxaynu leenahay xikmaddu waa fahan qoto dheer oo haybad u dhalasho ay ka dambayso. Muuqaalkeenna maanta ayaan idinkugu soo gudbin doonaa dhowr xikmadood oo aan u arkay inay yihiin kuwii ugu cajiibsanaa ee aan maqlo, lagana yaabe inaad adigu maqal. Ugu horrayn, ka hor muuqaalka, haddii aadan ka mid ahayn asxaabta ku midowday bahdan Culus Media, fadlan subscribe dheh oo nagu soo biir, like-na saar si ay asxaab badan u gaarto fariinteenna. Maanta xikmadaha aan wada waxaa ka mid ah: aqoonyahanku waxa uu aqoonyahan yahay markuu Rabbigii yaqaano, aakhirana yaqaano, adduunkana uu isbeddel ka samayn karo. Dhalasho wacan markaan leenahay, taas micnaheedu waa sanad baad xabaasha u dhowaatay. Taasina ma ahan wax lagu farxo. Dad baa dibadda ku qurux badan, gurigana markay soo galaan bahal ah. Qofka aad nolosha isku darsateen iyo carruurta aad dhashay inaad ku xumaanto, dibaddana nin fiican lagaga yaqaano, wax fiican maaha. Dunida dadka isdila iyaga ugu badan reer galbeedku, meeday barwaaqada ay sheegayaan. Aqoonyahanku haddii uu noqdo qof la iibsan karo, soldaamaduna iibsan karaan, dowladuhuna laaluushi karaan, aqoonyahan maahan kaas. Ciyaar baan daawaday, gool baa la dhaliyey, maxay noloshaada ku soo kordhisay? In hooyo la noqdo waxay ka qurux badan tahay inaad noqoto injineerad. Nin walba qabiilkiisa inta la dulmiyey buu og yahay, laakiinse ma oga intay dulmiyeen ee aakhiro u direen. Qur'aanka haddii aad akhrido, qof Rabbigii u warramaya ayaa tahay, bal qiyaas Rabbigaa oo kula hadlaya oo kula warramaya. Luuqadda Soomaaliyeed waa af Muslim, waa af diin iyo dadnimoba xambaarsan. Haddii aad rabto dadka in caqligooda ku aqbalo, waxaa ka horreeya in qalbigooda aad furato. Qofkaad qalbigiisa furan kari weydana, caqligiisa ma furi karaysid. Qalbigana waxaa lagu furi karaa jacayl, naxariis iyo hadal wanaagsan. Waxaa laga yaabaa inaad saacado badan ku bixiso iskuulka si aadan u saaqidin. Ka warran maalinta qiyaame haddaad saaqiddo maalin aan saaqidnimo ka weyni jirin. Dadka kuwa ugu hantida badan ayaa ah kuwa ugu hurdada yar. Haddii jannadu tahay meesha qofka lagu nimceeyo, cadaabtuna ay tahay meesha qofka lagu ciqaabo, adduunyaduna waxay tahay meesha qura ee la isku imtixaano. Ilmaha inaad guri uga tagto waxaa ka qiimo badan inaad diin uga tagto. Inaad dhaqaale u samayso waxaa uga qiimo badan inaad isaga qof ka dhigto jira oo nool oo muslim ah. Haddii uu qof muslim ah noqdo oo naftiisa ku kalsoon, meel uu seexdo iyo wax uu cuno isaga ayaa raadsanaya. Jaamacad baan ka baxay, shahaadaan qaatay, shaqo fiican baa helay, war waa tegaysaaye, waxaas oo dhan waa maalmo. Maalin ama maalin barkeed ayay nolosha oo dhan kula noqonaysaa markii qiyaamaha lagu weydiiyo oo nolosha ma maalin barkeed ayaad ka dooratay. Muuqaalkeenna maanta intaas ayuu ku egyahay daawade. Haddii ay jirto xikmad ka guuxaysa maankaaga, waad nuugu reebi kartaa commentiska. Hana iloobin inaad nagu soo biirto, subscribe-na aad dhahdo channelka, welibana muuqaalka haddii aad ka heshay aad like saartid. Mahadsanid, muuqaalka inoo xiga.